waa tahay dhegayste ku soo dhow xalqad kale oo xiise leh oo ku saabsan nolosha jilayaasheenna xiisaa leh ee riwaayaddeenna sahanka nolosha farxad ayay noo tahay inaad nala dhegaysatid riwaayadda xalqadii hore moogo waxa uu ogaaday warbixin ku saabsan in tababaruhu uu yahay madaxa burcadbadeedda ee cusub ee magaalada muxuu ka yeeli doonaa warbixintaasi sidoo kale tababaraha waxaa saaran cadaadis inuu si degdega uga howlgalo dhallinyarada oo ku soo daro burcadbadeednimada ma guulaysan doonaa qorshihiisu inta lagu guda jiro xalqaddan ka dhegayso isla hadda si aad u ogaatid sheekooyinkaasi iyo kuwo kale oo badan oo ku saabsan sahanka nolosha war joofle ma waalan tahay maxaa sidaas gaariga isugu soo tuuraysaa soomaalin hore kama aynan wada hadlin arrintan war xalay anigu waan saaxan waaye marka ma waxaad rabtaa inuu gaarigu ku jiiro aad hurdo dheer oo aan laga soo noqonaynin geshid aga mooge qorshuhu sidaasi ma ahan xalay oo dhan ayaan ka fikirayey waxa aad ka yeeli doontid warbixintii aan ku siiyey maxaa adiga kaa quseeyey waxaas yaah waxaad rabtaa inaad warbixinta ogaatid kadibna aad qofka aad lacagta ugu badan kugu siinayo aad ka iibsatid soo ma ahan dabcan maya ee waan isweyddiinayay oo keli ahniyow soo ma ogid wax isweyddiintaasi waa lagu khasaaraa si kastaba ha ahaatee haddii aad rabtid maanta waaye maalinka aan kashifi doono guddoomiyaha iyo walaalkiisa burcadbadeedka ah ee tababaraha ah cid iga hor istaagi kartana ma jirta haya asxaabey hadhow baan is arkaynaa cawil xaggaad u cararaysaa xataa quraacdii maadan dhammaysane waan dhergay hooyo ma rabo inaan wax badan cuno maanta waa maalintii koobka waa inaan qof fudud oo degdeg badan noqdaa laakiin waxaad u baahnaan doontaa awood aad ku dheeshid waa caadi aabbe marka adiga koobka kubadda cagta ma imanaysaa dabcan waan imanaynaa annaga ka ciidanka ilaalada xeebaha ahaan waxaan dhisannay teendho aan ku wacyigelin doonno dhallinyarada oo aan ugu sheegi doonno khatarta ay leedahay burcadbadeednimada weliba keliya ma aha khatarta ay leedahay sidoo kale murugada iyo ciilka ay badaan qoyskooda markay aadaan howlgallada burcadbadeednimada ay ku soo dhintaan booliskii qudhooda waxay dhisteen teendho oo waxaan uga hadli doonnaa sidii aan u soo qaban doonno dembiilayaasha oo ma ogaateen cidda dishay madaxii burcadbadeedda maya weli laakiin wax saas u sii qarsoomi doona ma aha waanan ogaan doonaa dhowaan waana ballan middaas helow hibo tawakal waxaan kaaga baahannahay inaadna caawisid oo waxaan helnay warbixin ku saabsan laashashkeennii naga maqnaa oo meel lagu arkay waxaan booliiska ka rabnaa inay naga caawiyaan oo ay taageeraan ciidanka ilaalada xeebaha haye noo soo dir goobta aniga iyo hadda askar soo kaxaysanaya waan ku qasbannahay inaan sidaas yeelno waa inooya hadhow mooge horta way fiicanta inaan ku arko adiga ayaanba ku raadinaya anugu sheekh rooble see tahay xaalkaa ka warran maxaad u malaynaysaa inuu xaalkayga ku sugan yahay maadaama aad adigu gabadhaada ku dhiirigelisay inay iskee furto waxay ila tahay inaan anigay adiguba ka dheragsannahay in gabadhu ay ku fiican tahay inay la'aantaa noolaato laakiin lacagteeda la'aanteeda ma noolaan karto miyaa arrinta xaawakiinay lacagtaada midna ma qusayso ee waxay qusaysaa wiilkaaga suhayba oo biilku uu ku noolaan lahaa loo baahan yahay haddeer waxaas ma samaynayo anigu marnaba noqon maayo qof uu dhiiggiisa dhuuqo dirirkaasi burcadbadeedda ah dirir burcadbadeed ma aha mooge waxaas waa laga soo gudbay hadda wuu ka tooba keenay mana ku jira hawshaas marka uu toobad keenay oo durbo owliye ayuu noqday miyaa laakiin marka annaga qaarkeen si aan caddaalad ahayn loo xukumay ilaa hadda waxaan naloola dhaqmaa inaan nahay dad xunxun miyaa mooge wiilkaaga ha u ciqaabin caradaada awgeed aniga xaawakiin shilin iga heli mayso middaasi waa hubaal
waxay rabtaa in odayaasha dhaqanku u bandhigo xaajadaada oo haddii aan sidaas yeello waxay u badan tahay in lagugu qasbi doono inaad masaariifta bixiso aniga go'aankii ugu dambeeya waan gaaray shilin dhegta ka daloolo siin maayo xaawakiin waayahay mooge haddii aad sidaas go'aansatay arrinta waxaan u bandhigi doonaa odayaasha dhaqanka degnimadii maxay tahay farxad kaama muuqatee tababare waxaan ka warwarsanahay arrinta caawa inaad ka welisid looma baahno runtii ciyaarta ma wada dhammaysan doontid oo waan kaa soo saari doonnaa si aad u nastid oo aysan tabartu kaaga dhammaan aniga kama warwarsanin inaan daalo waxaan ka warwarsanahay inaan dhinto ciidanka ilaalada xeebaha ayaa wada oo lala ballaaran oy dadka ugu sheegayaan tirada dadka ku dhinta markay ay aadaan howlgallada buracbadeednimo isdaji bilaal adiga kama mid noqon doontid dadkaasi la sheegaayo waad ka soo bixi doontaa hawshaas waxay kaaga sheekaynayaan sida naxariis darrada ah ay u dhaqmaan ciidanka maraakiibta ilaaliya haddii aan isku daynay inaan afduubanno wayna soo xabaday doonaan aniga ma rabo inaan dhinto hooyaday ma sii noolaa doonto haddii aan dhinto ma waxaad doorbidaysaa inaad halkan ku dhimatid welwel dartiis oo aad ka fikirtid meeshii aad ka helayd cunto bilaal ma u malaynayn inaad tahay fulay lacag baa meesha laga samaynayaa lacag badan oo degdeg ah waan ogahay marka maxaad u dhaqmaysaa sidii qof fulay ah is-adkeenin yahow oo orod oo hooyada lacag badan ula soo laabo ma isfahanni hadda haa tababare waad ku mahadsan tahay sida degdega ah ee aad codsigayga uga soo jawaabtay tawakal wax kastaa diyaar bayga yihiin si aan ugula dagaalamo burcadbadeedda darewal halkan istaag ma rabna in burcadbadeeddu na arkaan annagoo soo soconna aawaye kooxda inteedii kale heegan ayay ku jiraan oo adiga ayay amarkaa sugayaan ee ayna keen runtii wada shaqaynteedii ka dhaxaysa adinkii ciidanka ilaalada xeebaha iyo hay-adaha caalamiga ah waa mid loo bogay waa runtaa dhab ahaantii ma aanan heli lahayn laashkii haddii aysan ayagu warbixin naga soo siin waan imanayaa waad u jeeddaa meeshay joogaan dhammaan ciidanka heegan ha galaan inna keen aan raacdaysanne gacmaha kor u taaga aan arko gacmihiinna haddaan idiin jeedaa waad xidhan tihiin oo waxaa laydii haystaa laashka aad soo xaddeen ee ciidanka ilaalada xeebaha hadda waxaan idiin kaxaynayaa saldhigga booliska oo waxaad noo sheegi doontaan waxa aad ka damacsan tihiin aad u isticmaali rabteen inna keena waryaa mooge ka fiirso meesha aad u socotid naga aamus burcadbadeed yahow xaawakiin waan u jeedaa inaad sugi weyday inta aad cuddada ka bixisid oo durbo waxaad sheeko la bilowday burcadbadeedkan xaawakiin afaaraheeda ka bax baan ku yidhi adiga ayaan kula hadlayaa wax yahow bilaa macnaha ah xaawakiin marka ma waxaad iga soo tagtay inaad suuqa la joogtid qofkan lagu khasaaray waryaa mooge sida xun ee aad xaawakiin ula hadlaysid jooji xaaskaaga ma ahan hadda ma adiga ayay xaaskaaga tahay marka aamus marka xaawakiin jidadka ayaad iska wareegaysaa oo suhayb keligiis ayaad ka soo tagtay miyaad hilmaamtay inaad hooyo u tahay suhayb wuu fiican yahay oo guriga ayuu joogaa wuu joogaa oo waxaan u malaynayaa inaad u baahan tahay in lagu xasuusiyo sida carruurta loo koriyo muxuu ka wadaa waxaas yaa oghee iska dhega tir waa nin qaraarsan ee hadduu isku dayo inuu wax sameeyo waxaan geyn doonaa xarunta xalinta khilaafaadka xarunta xalinta khilaafaadka ah maxaa waaye waxaasi waa xarun ay ku jiraan gole odayaal oo rasmi ah oo ka duwan kii hore ee golaha odayaasha weli waxaa hogaamiya koox odayaal ah laakiin markaan waxaa jira waraaqado sharci ah mooge farxad bay ii tahay maanta inaan ku arko markaan gaarigaaga guuxiisa aan maqlay isma lahayn waa isagii oo idiin soo booqday marka maama ceeblaa gabadhaadu waxaad ugu oggolaatay
inay iska kay furto si ay jidadka ula wareegto burcadbadeedkaasi miyaa mooge si fiican ayaad u og tahay inaan aniga ka soo horjeeday furiinka weligayna kuma taageerin waalida xaawakiin oo ah inay kaa tagto laakiin mooge mana fiicna inaad wiilkaada u ciqaabto dembigii ay hooyadii kaa gashay ma raba inaan sidaan sameeyo i aamin laakiin fiiri siday u dhaqmayso oo ay bulshada oo dhan igu hor ceebaynayso anigoo ah nin aad loogu ixtiraamo daaqsan bal qiyaas in dadka ay igu sheekaystaan sababtoo ah xaaskaygii hore ayaa isla markii furuinka dhacayba waxaa lagu arkayaa iyadoo bannaanada wareegaysa oo burcadbadeedkaasi la socota runtii magaca qoyska oo dhan ayay meel uga dhacaysaa maama ceebla adiga xitaa ceyb ayay kuu soo jiidaysaa maadaama oo aad hooyadeed tahay dadku waxay isweyddiin doonaan sida aad u soo korisay waa in cashar loo dhigaa waan ku maqlay mooge waana kuugu raacsanahay waxay xaawakiin u baahan tahay in cashar loo dhigo oo ay ku soo laabato xishoodkii iyo noloshii wanaagsanayd allah oo aniga ayaa aqaana casarka aan u dhigi doonno mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhowaada koobabka kubadda cagta ee xiisaha leh ee maanta aan qabanayno xasuusnaada oo maanka ku haya waxaan iskugu nimid ma ahan koobabka kubadda cagta oo keliya ee waxaan wakhtiga kaga faa'iidaysanaynaa inaan wax ka baranno oo aan ka fahanno weliba dhallinyarada aan ku fahamsiinno khatarta ay leedahay burcadbadeednimada inta aanan hadalka idinku sii badin waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhoweeyo fannaanka caanka ah ee aad wada jeceshihiin ee reer daaqsan ee daahir sheekh rooble inuu inoo heesi doono oo uu inoo qaadi doono hees wacyigelina oo ku saabsan burcadbadeednimada ku raaxaysta oo dhegaysta galab wanaagsan dhammaantiin farxad bay ii tahay maanta inaan halkan idinkugu imaado oon codkayga ku biiriyo dadaallada socda ee wanaagsan ee ku aaddan sida dhallinyarada loogu wacyigelin lahaa inay ku biiraan burcadbadeednimo waxaan rajaynayaa inaad ku raaxaysan doontaan heesta oo aad wax ka baran doontaan ku dhufa muusiga walaal maasha allah runtii shaqo aad u wanaagsan ayaad qabatay intii aad ahayd tababaraha daaqsan mahadsanid waxaanoo dhan adiga ayaa suuro geliyey adiga ayaa shaqo wanaagsan qabtay guddoomiyihii daaqsan hayo waaya aan mid ku heshiinno tababare labadeennuba shaqo wanaagsan ayaan qabanno arrintan aad iyo aad ayay u fiican tahay runtii in dadka intaas la eg meeshaan isugu yimaadaan iyaga oo hal ujeeddo leh taas oo ah in ay ka takhallusaan burcadbadeednimada waana wax aad iyo aad loogu farxo waa sidaas mooge ii soo celi mikrofoonka hal daqiiqa keliya ayaan u baahanahay wax muhiim ah ayaan sheegayaa oo muxuu samaynayaa mooge galab wanaagsan dhammaantiin waan ku faraxsanahay inaan si weyn isugu soo wada baxno si aan u ciribtirno burcadbadeednimada ka jirta daaqsan waxaanse aad ama kaag iyo layaab igu noqotay markii aan ogaaday inaan annagoo dhan aan iska kaashanayno in daadka guryaheenna soo galay aan iska moosno balse qof kale uu nagu soo mooso annaga gadaasheenna ma aaminaysaan middaas aniga laftaydu sida aad u jahwareersantihiin ayaan u jahwareeray laakiin waxaan halkan u imid inaan wax idiin bidhaamiyo ma u jeeddaan guddoomiyaha
guddoomiyaha iyo walaalkii waaye burcadbadeedda asalka ah. guddoomiyuhu waxa uu walaalkiis oo tababaro ka caawiyey inuu dhallinyarada u duufsado burcadbadeednimo. waryaa mooge maxaad magacayga meel uga dhacaysaa waryaa? soo ma ogid inaan ku xidhi karo? been ayuu idiinku buufinayaa ninkaanu. waryaa mooge jooji warkaas, hadda jooji warkaas. been idiima sheegayo ee wiilashiinna oo dhan waxa ay ku biiri doonaan burcadbadeedda. kuwan ayaana sabab u noqon doona. mooge ka dami makarafoonka. waan ogahay oo waa beenaale. runta ayaan sheegayaa. maxaydan u rabin inaad runta dhegaysataan? bilaal, waan ka xumahay inaan ka soo gaadhi waayo koobkiinnii, laakiin waan ku faraxsanahay inaad koobkii soo qaadeen. ciyaar adag ayay ahayd, laakiinse waan guulaysannay. waan ku xumahay inaad daaqsan oo dhan lugaynaysid si aad alaab u iibisid oo aan lacag u helno. lugaha oo dhan ayaa i bararay, laakiin waa caadi. aniga ayay mas-uuliyad iga saaran tahay inaan ku koriyo. aniga wiil weyn ayaa noqday hadda. aniga ayaa la rabaa inaan kaa taxadaro. alla wiilkaygiyow, wiil aad u fiican ayaa tahay. dhibka laguma waaro weligiis. mar dhow waan ka bixi doonnaa. alaabtaas daaqsan ma ku wareejin doontid? waxaan kuu furi doonaa dukaan weyn oo aad u weyn. allah bilaal, waad riyoonaysaa? riyooyinkeennu waa sax. waa ka bixi doonnaa mar dhow. anigaa kaa ballan qaaday middaas. waan ku jeclahay hooyo. habeen wanaagsan. habeen la mida wiilkaygiyow, hurdo wanaagsan. runtii waa wax lala yaabo. dhallinyaro fara badan ayaa ku biirtay kubadda, laakiin qaar ka mid a ayaa la waayey meel ay ka baxeen. yaah, war maxaad ka waddaa? qaar badan baa la waayey oo meel ay ka baxeen aan lahaynba. waxaa jira wiilal aan iskuul ahayn. kubadda ayay ku soo biireen. wakhti yar kadibna waan waayey. iskuulka ma yimaadaan, kubaddana ma yimaadaan. cawiil, ma hubtaa waxaad sheegaysid? haa hooyo. tawakal, soo kulama habboona inaad baadhtid arrintan. afkayga ayaad kala baxday hadalkaas runtii, laakiin hadda mid samee. caawil cidna ha u sheegin warkan. ma rabno inaan cid ka xanaajinno, sababtoo ah ma naqaanno inta uu leegyahay shirqoolkan. haye dheh. haye aabbe. aniga laftaydu afkayga ayaan qabsanayaa. waa inaan soo qabannaa dadkaas budhcadbadeedda, dadka u shaqaalaynaya, oo hal mar aan ka takhallusnaa budhcadbadeednimada ka jirta daaqsan. maxay dhaheen odayaashii? adiga ayay kula jiraan xaawakiin odayaasha. waxaan lagu heshiiyey in uu mooga bixiyo masaariifta suhaybyare. taas waa qasbi cannu, waayo cunuga asagaa dhalay. maasha allah, waa war fiican. ilaahay baa mahad leh. aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay inaad arrintaas ii samaysid aabbe. gabadhaydii adigaa mudan. taas waa waajib. suhayb aaway, miyuu seexdayba? meeshaan shanqarka ma jirtee waa la aamusay. ma ogi wallaahi anigu maba arkin suhayb sidii aan u soo laabta aniga. haye anigaa soo fiirinaya inuu hurdo. ha isku dhibin waxaas xaawakiin. maxaad ka waddaa ha isku dhibin? aaway suhayb? aabbihiis ayuu la joogaa, isagaana watay. maxaad tidhi? haa, mooga ayaa halkan iigu yimid oo adiga kaa cabanaya. sida aad bannaananka u wareegaysid. wuxuu dhahay wiilkayga ayaan wadanayaa, aniga ayaa korsanaya. maxaa? sidee oogu oggolaatay marka? oo wiilka sow isaga ma dhalin, oo aabba uma aha. ceebla, maxaad sidaas u yeeshay? sababtoo aniga waa i nacab tahay aabbe. hooyadii anigii i dhashay ayaa sidaan dhan ii nacab, oo ilmahayga iga siisa ninkaygii hore. hooy, maxaa sidaas dhan iigu nacab tahay? maxaan kaa sameeyey oo aan ku mutaystay nacaybkaasi? waaw, taasina waxay ahayd xalqad cajiibkeeda leh. moogo waa uu iswaalay, wuxuuna arrintii tababaraha iyo guddoomiyaha ku saabsaneed u sheegay dadkii magaalada oo dhan. maxay ku dambayn doontaa arrintaasi xalqadda toddobaadka dambe? dabcan waxaan aragnay xaawakiin oo yaab iyo makaag ku dhacay kadib markii uu mooga ka qaatay wiilkeedii. maanta waxaannu aragnay sida ay bulshada isugu soo baxeen koobka kubadda cagta oo loo qabtay dhallinyarada. maxay ku dambayn doonaan sheekooyinkaasi oo dhan? kala soco toddobaadka dambe si aad u ogaatid sheekooyinkaasi iyo kuwo kale oo badan.
laakiin inta aan la gaarin arrimahaasi hadda ma jeclaan lahayd in aad heshid fursad aad ku guulaysan kartid abaalmarin lacageed oo caddadkeedu uu yahay $250. haddii ay jawaabtaadu haa tahay waxaan jeclaan lahayn in fikirkaaga aad ka dhiibatid su'aasha ku saabsan xalqadda toddobaadka. xalqadii maanta bulshadu waxa ay aaminsan yihiin in haddii ay dhallinyaradu ay ku mashquulaan arrimaha ay ka mid yihiin kubadda cagta inaysan u leexan doonin falalka dembiyada ah. adigu ma aaminsan tahay middaasi? haddii ay jawaabtaadu haa tahay noo sheeg sababta. haddii ay maya tahana noo raaci sababta si aad u heshid fursad aad ku guulaysatid abaalmarin lacageed oo caddadkeedu uu yahay $250. waxaa keliya ee aad jawaabtaada noogu soo diri kartaa si bilaasha nambarka 354 ama 330 adigoo raacinaya magacaaga iyo meesha aad joogtid. waxaan xulan doonnaa dhegayste ku taxan barnaamijkeenna waxaana guddoonsiin doonnaa $250. aan mar kale ku celiyo nambarkeenna bilaashka ah waa 354 ama 330. soo dir farriin si aad ugu guulaysatid abaalmarin. ballanteennu waa xalqadda soo socota si aan u ogaanno nolosha jilayaasheenna xiisaha leh ee sahanka nolosha. sahanka nolosha